waxaa maanta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland laga xusay maalinta qaaliga ah ee 18 May oo ku beegan sanad guuradii 11aad ee laga soo wareegay xorriyadda dalkii la isku oran jiray Soomaaliya waxaana iyada saaka sidaas isla mid ah looga dareeray degmada Ceelaf Weyn oo ka tirsan gobolka Sanaag munaasabadan ayaa ahayd mid aan loo kala harin oo ay soo buux dhaafiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ciidamada bilayska iyo waliba asluubta ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay dowlatus cajiib ah sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka muuqday dhammaan wasaaradaha ka shaqeeya degmada Ceelaf Weyn iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda iyadoo oo hormuud u yihiin maamulka degmada Ceelaf Weyn oo uu hogaaminayo Maayir Maxamed Aadan Digaale waxaana shacabka degmada Ceelaf Weyn oo isku duuban ay ku soo dabaaldegeen shaariicada waaweyn ee magaalada waxayna shacabku isugu soo biyashubteen madashii loo asteeyay waxaana halkaas shacabka kala hadlay isla markaana uga hambalyeeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda iyo waliba cuqaal iyo waxgarad dhalinyaro iyo saraakiisha ciidanka ilaamaha dawladda iyo intii noo shaqeynayay hawsha nala fududeysay runtii waxaan mar labaad aan la ilaawi karayn haweenweynaha degmada Ceelaf Weyn oo mar walba ka xamaasad badan ragga sida muuqata waxaan leenahay guulaysta aad iyo aad u mahadsantihiin waxay muuqda dhammaan intii aan garanayay uradii haweenka ay muuqda madaxyare waxay muuqda ardaydii waxa muuqda haweenkii waxa muuqda dhalinyarada quruxda badnayd intii soo nala soo abaabushay ee nala soo waday muddadii ay soo socotay waxaan ugu mahadcelinaynaa dabaaldegoodii iyo diyaargarowgii ay muujiyeen haweenka reer Ceelaf Weyn systemka ay noola shaqeeyeen systemka ay noo garab galeen systemka ay aad iyo aad u mahadsantihiin baan leeyahay haweenweynaha reer Ceelaf Weyn intaa waxay ii raacdo maanta waa farxad Soomaaliland oo dhan bay nala qabtaa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel ay joogaan May waa tee oo waa tuba taariikh maleedo maxaa lagu tilmaamaa waxa lagu tilmaamaa koobeesodakii May 1990 intaas hal ku dhiga waxaan u mahad celinayaa saddexda gole qaran golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo golaha wasiirada ka soo wareegtay maanta waxaanu ku naaloonaynaa nabad horumar iyo midnimo sidaa darteed waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo xukuumadda baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalintii qaranka waa maalintii calanka Soomaaliland waa maalin lagu qaaliya waa maalin u baahan in la wada ilaashado ciidda iyo calanka dhammaantiin aad baan ku mahadnaqayaa waxaan kaloo hambaleynayaa dhammaan shacabweynaha degmada Ceelaf Weyn oo horeeyaan maamulka degmada Ceelaf Weyn madax dhaqameedka dhalinyarada haweenka wasaaradaha kala duwan ee dawladda ciidamada qalabka sida nooc kasta ay yihiin maanta waa maalintii goonistaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May waa maalin farxadeed waa maalin inuu dabaaldegayno goonistaaggu waa go'aan shacab halkan inagoo isku dhan oo bulshadii reer Ceelaf Weyna waxaanu baaq uga diranaa beesha caalamka inay bixiyaan aynu helo xaq aynu leenahay ictiraafka 18 May xuskeeda waxaan idin leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay abaarna waa ina haysataa oo waqti adag baynu ina haysta waxaan leeyahay ilaahay ha loo noqdo ilaahay aan barino ilaahay inuu raxmad khayr qabto ina siiyo 18 May oo dalkan xorriyadiisa meel halgan adag loo soo galay duulayno cidna maagi mayno qarannimadeenna Soomaaliland shuxuurteennaynu muujinaynaa waxaynu kaloo muujinaynaa innagu inaynaan cidna nibcayn mid derisinala ah mid inaga fog iyo mid inoo dhow inaynaan cidna nibcayn baynu muujinaynaa qarannimadeennaynu muujinaynaa waxaanuna nahay qaran xornimadiisa qaatay 60kii qaran lagu muransayna ma nihin haddii aynu isku darsannay xukuumaddii koonfureed dee xukun militari baynu ku qabsadeenoo berigii ay xukunka militari 69kiina ku qabsadeen baynuba ka gonay laakiin waa la calaamadiyey tan eedhiin maygan waa lagu calaamadiyey waa qarannimadeenna inaynu muujisanno maalintii aynaga luntay 60kii ee aynu la soo noqonnay ee burco lagaga dhawaaqay weeye maanta waxaannu leenahay oo aannu caalamka u sheegaynaa oo aannu ummadaha dawladaha jaarka aannu u sheegaynaa ee cid kastoo ay khusayso aannu u sheegaynaa inaanay madax bannaanidayadu iyo dawladnimadayadu aanay gorgortan lahayn ee ay muqaddas tahay maanta waa maalin weyn waa maalin qaran waa maalin dhammaan
qaranka Somaliland isku shucuur yahay waa maalintii go'aansutaaga Somaliland sanad guuradii ka soo wareegtay 31kii Somaliland ay jirtay gaar ahaan 91kii markii lagu xusay ee aynu kaga dhawaaqnay ee shacabku shucuurtooda ku muujiyeen gobolka Togdheer ay ku xusayeen xuska 18 May ka soo wareegtay sanad guuradeennii 31aad hambaliyaan leeyahay Somaliland way dhaqaaqday Somaliland macid bas weydiinaysa waxaan leenahay beesha caalamka indhaha naga qarsanina Somaliland waa dhaqaaqday indhaha naga qarsan militariga tababaran amniga iyo waxqabadkooda qaabeynta shacabkooda muuqaalka socodkooda miisaanka qalabkooda dadku way majeerteen marra waaxidiga hooyo muxbiya salaantiro ummadda reer Somaliland maanta u dabaaldegaysa 30 guuradii ka soo wareegtay xilliga ay madaxbannaani qaatay Somaliland maanta u mahad celinaya ilaah ma mahadle dadweynaha u soo baxay 18 May oo himiladooda muujiyay insha Allah waana gaari doonaa 30 guuradii Somaliland walaalayaal waa guulaysan ugu dambeyntii waxaa isna halkaas ka soo hadallo qeyrada ka soo jeediyay maayirka degmada Ceelafweyn Maxamed Aadan Digaale quruxdan iyo bilicdan iyo maqaamkan sare idinka ayaa sameeyay ururada bulshada ee kala duwan laamaha dawladda ciidamada dhammaantiin saxaafadda idinkoo aan kala gurayn waa idin mahad celinayna waxaan leeyahay dadka yaana iskaga khaldamin ma nihin gobol ka go'ay South Soomaaliya waxaynu nahay laba dawladood oo 60kii ka hor ahaa laba dawladood oo la oran jiray Italian Protectorate iyo Somaliland British Protectorate ayaa layna kala oran jiray Ceelafweyn waa taa madaxweyne maanta waa midaysan tahay waad aragtaan cududooda iyo waxa weeyaan shucuurta ka taagan waana degmadii u horeysay ee calanka laga taago sidoo kale gumaystihii rijimka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre waa degmadii ugu horeysay ee ugu hor xirowda weeye madaxweyne waxa fariinta aan maanta shacabka reer Ceelafweyn ku diray waxa weeye baaxad ahaan dhul ahaan iyo population ahaan iyo qadiyad ahaanba maanta gobol waan u qalanaa isku soo wada duubo soo baxan balaaran maanta laga dhigay degmada Ceelafweyn ayaan hore uga dhicin degmadaasi waa Maxamed Abaadir Ceelafweyn